أصلك بني آدمكو إلهي سبحانه وتعالى قابك وأبور إنسانك واحد هذا بطبعه واجتماعي كما مارما إنه بلشة يضد كمد نقضة ولا نولاده إنسانك وما قفك بني آدمك يسيدي سبنا لما مدها ملائكته الشر ماله خير بيسميه إنسانك لكن زعتك الله وكو أبوري خيرك يا شرك بو عنكره طبايع دي ساكله قديسن أقونتي ساكله قديسن مصالح دي سيدنه لي باكله قديسن وحيابا بدن با وحي كلفان إنه مرمه أما إسقبطه أما إسكهر يماده هدو أفراد يهي هدو جماعات يكوحي يهي هدو دولة يهي waxaa dhacda bini aadamka in marar badan muran u dhex maro iyadoo ay leeyihiin aslu linsaan alukhuwa watacaayush baa asalka ah laakiin طabcigiisa iyo masaalixdu ilaashanayo iyo makaasibta maadiga ama macnawiga ee uu raadcadeeda ku jira baa waxay keentaa in bini aadamku in badan murmo ama iska hor yimaado ama isqabto waxay isweydiinta leh markaas sidee loo xalilaa إنه هذين الصومالين هاي بني آدم كوين لو ذاقنا بني آدم لماذا لكن عصور تندم بوحة عام نقطي إنك الصومالي مشكلة دي سحليلي بكرواية إلى حد اللغات كي عالم كأنه ترمينولوجي ريع عصب كصابيرني في عربي قوارك تنمي كأخبار تأم جرايد كمعين كانوا صوملة القضية له يعني وأري منحوطة من كلمة الصومال لغا نحدي لغا دلي لغا قري لغا سميي وحي tilmaamaysa inuu طبع غريب ku yahay basharka inuu yahay kanaynu keenay oo ah mushkiladan xal lahayn muranaan gabagaba lahayn meel ku dhamaadaanay jirin insaanku inuu murmaa waa min طبعه إلهي بالقرآن قلت المامي حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم والصحابة دي النبي عليه الصلاة والسلام أما إلهي باينوت المامي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لكن هذا عكس كذا وحلا ينوشي النزاع بين آدم ككل حد عين حلي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول waxaan isku dayay inaan soo bandhigaa marka waxay tahay khusuumada iyo muranka bini aadamka dhex mara shareecadu saddex qaybood bay ugu tala gashay in la maro saddexda xal ee shareecadu soo bandhigtay mid waxaa la yidhahaa alcafu aw almusaamaxa in la iscafiyo oo la kala roonaado soomaalida mahmaheedii waxaa ka mid ah haddaan la kala roonaan roobma da'a bay yidhahdaan yani mushkiladu ma kasii dhalataa إن ليس عفية طريق إن إصلاح هي الصلح هي هشيس لقاله ومعناه هي إن لقرقرتمه مصاومة يدعضه والتنازلات ضدك أي سميان ومال حل يسوي ماضو يدو مسألة عام كالا يغني ومركاد إن كتكتو مقابل كاد مسألة حكا لو وين بده ليس أريق العفو والمسامحة أو التصامح والصفح يوحل معناه دكتور ونيس الطاهر وحلي مكان إيغو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن والدكشنيري لقبار رياضة قرآن كقصار وريف عربية مكان إيغو لي وحنكو أركي أفرتني أفر آيضود إن كبضا أو كور رميسا عن العفو والصفح إلهي سبحانه وتعالى هو أودي آية واحدة معناها إسعافية دا إن لينوغو شيغو لكن مركا اللي يدهدا أفرتني أفر آيضات باقصة أراري معناه دو حويا قضية نسيدي مهم كوطهي هي سيدا اللور ربو قفك بني آدم كأم مؤمن كأما مسلم كأين السيدا بوغدا دعدو إن نقطة وحكم ده من خلقه ومن طبعه وسجيته وحدقا كيسي أخلاق دي سكم ده ونولشي سودان واديك سدو هذه الآيات أفرترية كبضا وحكم مدان سكودية إن نعاوة الماما عموما
bacd alaayaat ilaahi subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyay wajazaau sayi'atin sayi'at miluha faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah fii suurati shura. sayi'ada ama xumaa lagugu sameeyo muqaabilkeeda in leeg inaad samaysaa baad xaq u leeday. ilaahi subxaanaه wa tacaala laakiin wuxuu leeyay faman cafaa waaslax, cidda cafida ee islaaxa doorata faajruhu cala allah baa ilaahay yidhi, ajarkiisa kaa isaga rabbun buu korkii ahaaday, wax la tirin karo uu ka badan yahay. ilahi wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala min hadihi alaayaat fi suurati الnisa waxaa ka mid ah in tubduu khayra aw tukfuuh aw tacfuu can suu faina allaha kaana cafuwa qadiira. haddaad khayrka muujisataan baa ilahay yidhi ama qarsataan, qofka bini aadamka ahi hadduu qudwayey ama acmaasha khayrka u isleey waa lagaaga dayanaya ama furuudul acyaanka ay tahay, waxa fiican in la muujiyo oo ay faafto oo ay muuqato. waxyaabaha qaarkoodna waxa ku fiican qofku inuu qarsado oo isaga iyo rabbigii u dhaxayso. salaad ha noqoto, sadaqaad ha noqoto, wuxuu wanaag badan oo uu rabbigii subxaanaه wa tacaala u gaar yeelo, waayo acmaasha inta badan istuska iyo riyaaga iyo sumcada iyo waxa la midii way buriyaan. qofku inuu qarsadaa waxay ku kaliftaa ama waxay ku saacidaa inuu camalku khaalis uu noqon karo, isaga iyo rabbigii ay ka dhaxayso. ilaahay markaa wuxuu leeyahay khayrka haddaa qarsataan iyo haddaa muujisaanba, labada dhandhankaa martaanba, aw tacfuu can suu, waxaa intaa muqaabal u ah aw tacfuu can suu, ama xuma aad dhaaftaan. khayrkii la samaynayay waxa la dhinac dhigay oo isna ka mid a waxyaabaha wanaagsane la samaynayo, aw tacfuu can suu faina allaha kaana cafuwa qadiira. rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamayaa colaadda bini aadamka dhex marta waxa lagu damiye ee ugu waaweyn inuu ka mid yahay ee colaaddaa u bedeli kara saaxiibnimo iyo qaraabanimo iyo tolnimo iyo kalgacal iyo soo dhoweyn u bedeli kara inuu cafigu ka mid yahay. walidalik baa ilahay wuxuu leeyay walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiim. ma sinna baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala ta wanaagsan iyo ta xuni, ee ta wanaagsan kala hortag, ciddii ku xumaysay adigu cafi oo wanaag weliba u samey baa la tilmaamaya. faida aladii baynaka wa baynahu cadaawat kaanahu waliyun xamiim, kii shalayto adiga iyo isaga idiin dhexaysay colaaddu, qofka aad dhibta kuu geystay, mantaqa caadiga ee bashariga ahi waxa uu sheegayaa inuu filayo inaad adna aar gudato ama wax goosato, waa sida bini aadamka lagu yaqaano. laakiin taa cagsigeed haddaad wanaag weliba samayso, ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy cadaawadii idiin dhexaysay waxay isu bedelaysaa kaannahu waliyun xamiim, kaannahu qariib xamiima, sidiiq kuu dhow, saaxiib dhow buu noqonayaabaa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala. idfac bilatii hiya axsanu sayi'a naxnu aclamu bima yasifuun. aayaadka iyo kuwa la midka ah fii suurati shura ilaahay markuu mu'minka sifaynayo sifaadku ku sheegay waxaa ka mid ah waladiina idaa asaabahum اlbagyu hum yantasiruun wajazaau sayi'atin sayi'at miluha. aayaadka ka dambeeya ilahay wuxuu leey walaman sabara wagafara ina dalika lamin casmi اlumuur. nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam sunnada saxiixa waxaa kaga soo arooray fii saxiixi muslim iyo imaam tirmidi ba ay soo saarayaan xadiidku nebigu dhaaranayay ee ashyaa dhowra ku dhaartay. maxalu shaahidkuun baan u tegayaa. waxaa ka mid ah nebigu wuxuu hi wamaa zaada allahu cabda bicafwin ilaa ciza. wuxuu nebigu ku dhaaranaya calayhi salaatu wasalaam qof mu'mina oo addoon ilaahaya cafi uu cid cafiyaa uma kordhiso mooyaane cizi iyo sharafti. haddaba in qofku wax cafiyi karo arrin fudud maaha. bini aadamka wuu ku culus yihi, waayo min طabci اlinsaan khilqada bini aadamka sida ilaahay u abuuray waxaa ka mid ah inuu jecel yahay alintiqaam walintisaar. waa shay maxbuub bini aadamku ah, wuu farax gelisaa qofku ciddii shalay dhibtay markuu ka aarguto wuxuu dareemaa badhaadho iyo farxad buu qofka bini aadamkii dareemaa. idan min طabci اlinsaan waxaa ka mid ah
alintisaar walintiqaamu linafs ayaa ka mid ah. hadduu qofku markaa abuurkaasi abuurkiisa ka mid ah hadduu ka kor maro oo ka xoog noqdo oo wax cafiyi karo, cidda wax cafidaa bay yidhahdaan aslan hum alaqwiyaa, waa dadka nafsiyan xoogga ah ee ka kor maray xuduudu nafs, dheefta yaree bini aadamku uu jecelya ka kor maray. walidalik baa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa lamin casmi اlumuur inay ka mid tahay. waxaynu u baahanay marka bini aadamku nadariyaadka iyo theoryga ashyaada macnawiga ee la sharxo si fiican ugama dhaadhacdo haddii aanu tusaalayaal rasmiya helin oo nolosha ka mid a. waxaan isku dayayaa aayaadka badan ee qur-aanka ku soo arooray ama axaadiista badan ku soo arooray masaladan ka warramaysa inaan inaha ku joojiyo, laakiin nusuusta tamhiilka sheegaysa inaan badiyo. ugu horeyn waxaynu leenahay alcafwu majaalaat alxayaat oo dhan buu galaa. insaanka marka cafwiga laga warramayo inta badan dadka maskaxdooda waxaa ku soo degta qof caayay ama maagay ama intan oo u cafiyey, laakiin ereyga kani fi shariica alislaamiya uu ka guda ballaadhan yahay. qadaaya siyaasiya buu galaa, siyaasa alkhaarijiya buu galaa, siyaasa daakhiliya buu galaa, qadaaya alxarbi buu galaa, qadaaya shakhsiya buu galaa, qadaaya alusra buu galaa. noloshoo dhan baynu leenahay waa wax ka mid a. sida awgeed alqaa'id الnaajix, qaa'idka marmuuq ee umamka hogaamiya, waa sifaadka ugu horeeya ee loo baahan yahay in laga helo. bini aadamka qofka jacjacoorkii ma hogaamin kare aan dul qaadane waxba cafiyi karin. walidalik baa ambiyadu sifaadkay ku sifoobaan waxa u badan oo ka mid a cafwiga. ilaahay nebigii moxamed calayhi salaatu wasalaam oo loo soo diray inuu noqdo qaa'id albashariya jamcaa, insaaniyada dhammaanteed oo dhan bini aadam inuu hogaamiyo, inuu noqdo mithaalka ugu sarreeya ee bini aadam uu kaga daydo dhaqan iyo akhlaaq iyo caqiido. oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku ammaanay, tilmaamayana yowma alqiyaama inuu odhan doono sayidu waladu aadam inuu noqon doono, saaxibu liwaa'i alxamdi washafaacati alcudma, saaxibu alxawd. ilaahay isagoo nebigaa la hadlaya calayhi salaatu wasalaam caynkaasi iyo ummadda tan loogu talagalay inuu mithaalu noqdo iyo hogaamiye, ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy khudi alcafwa wa'mur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin. muxamed calayhi salaatu wasalaam baa ilahay wuxuu leeyahy khudi alcafwa, cafiga qaada baa ilahay yihi, ku dhaqan, samahana dadka far. laakiin qofku hadduu qaa'id noqdo ama ummad hogaamiyo, cid xagxagata lama waayo ama maagta ama wax ka sheegta. ilahay wuxuu leeyahy wa acrid can iljaahiliin, wax magaratadana dhaaf. adiga dariiqaagu ha noqdo inaad cafiga qaadatid, jidkaagu ha ahaado sama-un inaad ka talisid oo dadka wanaag u sheegtid. muqaabilka jacjacoorka kaa hor yimaada ama maangaabka ama wax magaratada wax sheegta, kuwaana dhaqankaad kula dhaqmaysa ha ahaadaba ilahay leeyahy wa acrid can iljaahiliin. safiiha iskaga tag, dhaaf, ka jeeso. walidalik baa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari warinayo, axad saxaaba baa wuxuu leeyahy kaanii anduru, nabigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaanii anduru ila اnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam yaxkii nabiya min alambiyaa. saxaabi baa nebiga ka sheekaynaya, nebigiina wuxuu kasii sheekaynayaa nebiyan min alambiyaa. shuraxda qaar sida yidhaahdaan, shuraxda qaarkoodna waxay leeyihiin isagunbaabu ahaa qadiyadu yah, laakiin wuxuu usoo bandhigay ka xikaaya. miday doontaba sharaxu ha noqdee, kaanii anduru ila nabiyi yaxkii nabiya min alambiyaai aadaahu qowmuh wahuwa yamsaxu اdama can wajhi wayaquul allahuma اغfir liqowmi fainahum laa yaclamuun. waxaan arkayaa buu yidhi nebi nebiyada ka mid ah ama moxamed calayhi salaatu wasalaam ama ambiyadii ka horeysay oo tolkii dhibay. nebi waxaad garan kartaa wuxuu sheegay inay samuun ahayd, abaalmarkiisuna inaanu ahayn in la dhibo. isagoo wanaag sheegaya waxa loogu abaalguday
in la dhibo dabeetana dhibtu ay xad gaadho in jasad ahaan dhibaato la soo gaadhsiiyo uu dhiigga wejigiisa ka masaxayo. qofka bini aadamkii marka la dhibo ee dhiig madaxiisa laga keeno inta badan wuu cadhoodaa. cadhaduna waa volkaanaha maskaxda dadaday ka mid tahay ee bini aadamku markuu cadhoodo wax badan aan laga filayn baa ka soo baxa. laakiin nebiga kan waxaa lagu sifaynayaa inuu yahay isagoo dhiiggii wejiga ka masaxayo haddana wuxuu leeyahay allahuma kfir liqawmi fainahum laa yaclamuun. ilaahayu tolkay isaga dhaaf waayo waa waxba garato, jahli baa haya iyo garaad la-aan. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markuu sifaynayo mu'miniinta dhabta ee qur-aanku ka warramay oo ah sifaatu ahli ljanna baa qur-aanku ka warramaya. sifaatkaasi jannada carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin markii la yidhi ayaa ilaahay sifaat siiyey dadkan jannada gelaya. waxaan isku dayayaa maxalu shaahidka qura inaan sharxo. dadkaa sifaadka lagu sifaynaya waxaa ka mid ah ahlu jannaha ee muuminiinta ah min tabcihim wa sajiyatihim inay ka mid tahay, dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo noloshooda caadiga inay ka mid tahay. waalcaafiina can innaas baa ilaah yidhi. waalcaafiina waa kuwa cafiya ayo u fiirsa aayadda maaha can ilmu'miniina almukhlisiina almuttaqiin maaha. ilahay wuxuu leeyay waalcaafiina can innaas والناس فيهم الكافر والمنافق والجاهل والمؤمن وغيره. إلهي وحلي والعافين عن الناس وقوة ضدك عافية. من طبع المؤمن هي أخلاقيات كسوى حكم ذا إن أنا هين قف أرجود الشر كبضمتي طبع كسوى حكم ذا قف عفو كبدي هيني. في سورة الشورى مركا إلهي مؤمنين تصفين وحكت الماما وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذا عراضان با إلهي سبحانه وتعالى وكوه ذاتك عافية سجية دوحة كمدة الصفح والعفو عن الناس. وحالة الغضب أنا يقنو تاريخ الإسلامي هي النبي عليه الصلاة والسلام قضايا السياسة الأمة سيدو ولا نغم ما دام إنه نلقائدك ناجحة أما هجاميها قوليستي لا يقانو وهجاميها نقل كيسو كم جهين وعفو يقاطه. نبي عليه الصلاة والسلام وحين نقانا إنه تقال علي مثال تقال لدي وقالي وحكم إذا تقال كي أحد قالدي قريشين با مسلمين تكسو دوشي. نبي عليه الصلاة والسلام مساجد كشرو وقبطي وحويدي محينو يا الله ميانو أبحنا مسويلو تشوقنا. دقال كي هورين بدر دالي رب بدرو مسلمين وان كقيب قلني يدتي حماسو ده هيسي وحيد هذا أنا أنبحنا حينو قال ده هلكو وسوينا حقو هران سكو أرقنا والله صواب حي. نحن مركي اللي مريي يعني وايل سياسية وعبد الله بن أبي بن سلول إلى رأس المنافقين. كان منافق لماذا كرسي سياسيين بأوجيي أنت بدن بيع علماء الشيعة وأي نبي محمد مدينة وحو يمي يسوي تاج كيس اللي تليه تبتنا وحو أرك يا بين النبي محمد وهو قامنتي ومضى كقاضي وكرسي يسلميي نيكا كاني وحو إلى أنه قدت كي وايل كم قال هذا ولا لنا لا أقبل ما يردل يرد يوركنا ولا أقبل حوالي كل بيس هاي دتك كميشة مريبة بس صدق بقولت دت قاعد يدبوا شاب صدق وكان عضي دجالك طب هذا بقول الصراحة ده دجالك قشي قال دي ولا شبيه مركي هوري ستاريخ تقوى ده نقارنه كوح مسلمين تكمل النبي قميل يدي إلى عليا يدي ورقالة دي شفته يه حين ماشي كسوقنا إنه حالا وحقبهم غريمة دوينا نافي ninkii madaxda bay ka yimaadeen dagaalkii bay sida ku soo galeen waxba la gurtay gaaladii waa soo rogaal celisay meeshan socda waa kan muslimiintii waxa ku dhacay marka kan jab aad xoogan oo keensaday in 7 nin oo saxaabadii waaweynayda oo nabiga adeerkii uu ku jiro la dilo
bal la tamthiil lagu sameeyo la googooyo beerka xamse qof dumar calaaliso say taarikhyahanadu soo naqlayaan waxay gaadhay xad nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam god loo qoday uu ku dhaco koofiyadii birta ahayd ee madaxa uu ku sita ee dhabannada ka gasho dhooshan hoose laga jebiyo dagaalku uu ku cuslaado xad in yari saxaabada intay isba kala garan weyday iyagu dhexdooda ay isdilaan in yari oo kooxi ay ku soo hadho 9 nin baa ku soo hadhay 9kii 7 ka mid a xabad xabad loo dilay insixaab ay sameeyeen oo buur is idhaahdeen kora buurtii uu nebi maxamed fuuli kari waayo loo fadhiistay si uu uga tallaabo meesha tan salaadii duhuruu fadhiga ku tukaday mushkilad baa muslimiinta soo gaadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiiba saxaabadu markii la jabay rag waaweyn oo saxaabada ka mid ah maalintan si fiican baa loo jabay goobtaas orodkii rag baa madiina ku galay tawalli yowm zaxf jeestay oo madiina galay qadiyadda sidaas iyabaa ilaahay qur-aan soo dejiyey la barayo nebi maxamed siduu ula dhaqmo saxaabadan jabtay waxaan oo dhibi qabsatay saxaabadan akhtaadaa gashay akhtaa baa ka dhacay ilaahay baa le minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira laakiin nebiga sidee la yidhi ula dhaqan ilahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala fi suurati ali cimraan aayaadka ku jira fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إلهي سبحانه وتعالى وحليه فبما رحمة من الله لنت لهم إلهي إن حريص حقي سكتمي درادت سببتت أياد قد بعده شلع سناتي با إلهي لي صحابة إلهي بقلبي قاقل إن حريص قليه بلا لي هداد أهان لهيد با إلهي لي كو إنجيغن oo qalbi adag fadan ghalid alqalb ku tabiicad qallafsan oo qalbi adag oo naxariista baa aqoon haddaad ahaan lahayd lanfaduu min xawlik baa ilaahay yidhi way kaa yaaci lahayd walow xaqana sheege xaqa bini aadamku kuma raaco inuu xaq yahay oo qura ee marar badan buu wuxuu u baahdaa ciddan xaqa sheegaysa inay noqoto cid bashar hogaamin karta oo wadi karta hadduu wadaadku jacjacoor noqdo dabeecad qallafsan walow xaqana ha sheegee waa adagtay inuu yeesho atbaac iyo cid wax ka baratay iyo cid la joogta ilaahay markaasi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala nabigiisii muxameda calayhi salaatu wasalaam haddaad qalqallafsanaan lahayd oo dabeecad adkaan lahayd dadku wuu kaa yaaci lahaa ee maxay yeel baa la leeyahy markaa wadciga caynkaa u ekaaya sida ay u jabeen ee dhibtaasi soo gaadhaa ilaahay wuxuu yidhi facfu canhum cafi saxaabada tan واستغفر لهم إلهينا دم دافو ويدي وحي خطأ أي قالين إلهي دم دافو ويدي وشاورهم في الأمر با إلهي أرن كان وحكسي تلادا تتكبر با وحي وهستان تلادا إن يرو صالحين وننت يقواف كيسا صارتي لي ما يتلادا ومد عليه إن وحلق السيابي حقول هذا إلهي وحكول النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسيقوا النبي والرسول وددك إلهي كالدورتي وعقل بدن ayaa waxaa la leeyahay oo waxyi ku soo degayo ilaahay hagayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay talada dadka wax ka sii cafi oo ilaahay dambi dhaaf u weydii oo taladana wax ka sii baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaas buu kula dhaqmay iyadoo la jabay bay waxay noqotay inay haddana dadka kane uu dib u hogaamin karo oo dhibaatadii soo gaadhay ay ka soo kaban karaan siyaasaddu nebigu kula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam kaasi waa siyaasa daakhiliya النبي عليه الصلاة والسلام في السياسة الخارجية نفس الشيء بكل نغمة أنا لما قضية ينكت المامو نبي عليه الصلاة والسلام مكة غير مكة وين جيسين وهي أجاني كفرستين والله النبي وحيسوق أن يعدي ونقربوا أهيد قال يا مسلم بعيد يدون أنا هذاني أما أبي طالب هالنقطة أما خديجة هالنقطة أما إني دنتين صحابة دين كم مدينة هجروتي أما كبح ذي وضع النظر وحس كده النبي عليه الصلاة والسلام دعوة في فيديو
bal reer maka waa kuwan oo adkaade madiina thaaniya thaqiif inuu tago reer bani thaqiif طائف inuu tago oo dacwo ka sheego reer طائفna waxay kala hor yimaadeen saynu taariikhda ku hayno dhagaaday kii horeba ka daran waa la soo shiiday dumar iyo caruur baa lagu diray dhiig baa madaxiisa laga keenay gomadaha cagaha dhiigu ka daayay nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ku qoran wuxuu tilmaamayaa inuu nabigu leeyahay ifaaqa mahmuumka siduu ahaayey u warwarayay maan baraarugin ama maan toosin wuxuu maans arkay buu leeyahay anigoo qarnu thacaalib maraya intuu intaa soconayay kaana aanu humuumka iyo dhibtii haysatay meel uu socdiyo meel uu marayaba garanaynin qarnu thacaalib anigoo marayo baan is arkay buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xaaladda caynkaas iyo isagoo ku jira oo nafsiyan sidaa cidhiidhi u dareemay ayaa ilaahay min cinda malag u soo diray malag baa la soo diray xadiiska saxiixeynka ku jira bukhaari iyo muslim wuxuu sheegayaa malag baa u yimi oo yihi ya muxamed ina allaha qad samica qawla qawmik wa ana malaku ljibaal ilaahay wuu maqlay warkii tolkaa waxay kaala hor yimaadeen aniguna waxaan ahay boqorka buuraha u xil saaran rabbi baana ii kaa soo diray waxaana la ii soo diray lita'muranii bima shi't fama shi't maanta waxaad doonto inaad i amarto maxaad rabtaa haddaad rabta buu leeyahy in shita adbaqtu calayhim alakhshabayn labada buurood ee maka hararaa ku yaalla kor intaan u qaadaan dusha ka saaraya reer maka maxaad fili lahay qofkeena caadiga ahi ee intuu dad xaqu sheegay ay dileen oo kuwo kale u tegay ay soo dileen oo ilaahay u gargaaro la yidhaahdo buuraa dusha ma laga saara dhulka ilaahay la goobaad odhan lahayd bay u badantay waaba ka soo harin laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qalbuhu awsac min dalik wuxuu leeyahay faqaala bal arju an yukhrija allahu min aslaabihim man yacbud allaha waxdahu laa yushriku bihi shaya man yacbud allaha waxdah may buu leeyahay waxaan rajaynaya xataa kuwani hadday dhaga adeygeen in ilaahay dhabarkooda ka soo saaro qaar ilaahay keligii caabuda waan cidna ugu shiriig yeelin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo saaro diintaynu maanta haysanno dadkiina soo gaadhsiiya kuwaasay ahaayeen qurayshta iyo ansaartaasi muhaajiriin iyo ansaar ah oo dadkaas ka mid ahaa ayay ahaayeen waxaynu garan karnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam fii tacaamulihi maca alxuruub dagaaladu la galay dadka kale iyo siduu la dhaqmay kani waa isagoo keliya bal aan eegno isagoo ciidamo wata nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam 13 sano ayaa maka lagu dhibayay isagoo madaxiisa geela cascasa la dul saaray oo baxsiyuu ka baxay maka 12 maalmood buu dhexda ku sii jiray akhiiran wuxuu tegey maxay madiina quraysh kuma dayna dagaal bay ka dabageysay 6 sannadood oo kale ay weerar ku hayeen haddana oo badar iyo uxud iyo khandaq iyo wixii la midi dhaceen waxay u diideen inuu xaramka u soo cimraysto 19 sannadood markay marayso ayay aqbaleen inay heshiis la galaan laakiin haddana heshiisku markuu 2 sano qura jiray ayay buriyeen sanadkii 21aad ayay haddana heshiiskii buriyeen nimankaa 19 sannadood colaadu u dhaxaysay 2 sano qura intay la heshiiyeenna heshiiskii buriyey ayuu nebigu ciidan soo qaaday ciddii isaga heshiiska ku raacdayna dagaalada ku qaaday ayuu nebigu markaa soo duulay isagoo 8,000 ilaa 10,000 ciidan u dhaxeeya watuu maka soo galay xoog buu qaybo ka mida maka ku qabsaday maka markuu soo galay qurayshi waa isu tagtagtay waxaa la yidhaha la hadalna nebigaa loo yimi calayhi salaatu wasalaam maxaa filaysaan buu yidhi marka dee maanta war kale ma yaalo aan isbihinbihis ahayn akhun kariim wabna akhun kariim warkaasay sheegeen walaal fiican iyo in adeer fiican baanu rajaynaynaa inaad noqoto ahlu siyarku waxay soo wariyaan inuu yidhi intaliquu idhabuu fa antum اطulaqaa culamaa alxadiisna waxay dhahdaan sanadku ma asixin laakiin sanad kale ay xasan ku sheegayaan bay soo arooriyaan oo inuu waadhii
ونبي الله يوسف دليل شدي ونشاقي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لكن القصة بمجملها وحويان وعفي nimankii intaas oo sannadood dagaalku u dhaxeeyay wax walba la isla soo maray markuu qabsadee ka soo xoog batay mu odhanin madaxa ka gurayaan xabadi ka baxsanine nabigu calayhi salaatu wasalaam uu iska cafiyey. idan waxaan leenahay siyaasad dakhliya nabigu wuu ku isticmaalay oo jamaacadiisii akhtaada gashay inuu cafiyo. siyaasa alkhaarijiya iyo mushrikiin wuu kula dhaqmay oo kuwii wax kasta u geystay markii ilaahay malakul jibaal u soo diray inuu iska cafiyo oo yidhaahdo waxaan rajaynayaa in ilaahay dhabarkooda kuwa wanaagsan ka soo saaro. oo kuwii dagaalkii iyo xoogga ay isku daleen markuu isu yimaadeen uu ku xoog batay wuu cafiyey. anaguna bisifatihi shakhsiya kuwii weeraray marka isku dayay inay dilaan ama sumeeyaan. xadiidka bukhaari nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaal ka soo noqday ayay meel dooxa ah laba buurood dhexdooda ayaa ciidankii muslimiintu degeen. dhir baa la kala hoos harsaday. geed weynoo meesha ku yaallaa nebiga loo baneeyey. waxaa la yidhi geedkaa nebigu ha harhsada inana meelayna kala harhsano. nabigu calayhi salaatu wasalaam geedkiibuu iska harhsaday. seeftii uu sitayna laan buu sudhay geedka ka mid ah dabeetana uu iska seexday. muddaa dagaalka laga soo socday waa la daalanaa. habeen baa la guureeyey. subxii baa la socday iyadoo la daalaya meesha la jiifsaday. gaaladii nin ka mid unbaaba iska soo dhex maray ciidankii. nebi maxamed oo geed hoos jifa buu isa soo dul taagay. seeftii nebi maxamed buu la soo baxay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana galku ka saaray. nebigu wuxuu indhaha kala qaaday iyadoo gaal dul taagan yahay oo seeftiina gacanta ku haysto. gaalku markaa de wuxuu arkaa nebi maxamed inuu ka takhalusi karo. intuu eegay buu wuxuu ku yidhi man yamnacni mink, yaga kaa dhicinaya maanta, yaga kaa celin. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allah, ilaahay baa iga kaa dhici. waa ku celiyey. isaga uma qurqursano taasi. man yamnacni minka buu leeyay, yaga kaa dhicinaya. nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kaluu ku celiyay haddana allah. riwaayadda bukhaari waxay leedahay seeftii buu galka ku celiyey. riwaayad kale axaadiista soo arooray waxay tilmaamayaan inay kaba dhacday. dabeetana uu nabigu qaatay calayhi salaatu wasalaam uu isna yidhi man yamnacni mink, anigana iyaga kaaribi haddaba. markaasuu baryootamo wuxuu leeyahy ku seef qaata kii uu khayr badnaa noqo, iska kay cafi. ninkiiyo halka fadhiyo nebiguna seeftiisii haystay. saxaabadii soo toostay waa u yimaadeen. nebigu qisadii buu sheegay. anigiyo ninkan waxaana dhex maray ma maqasheen buu yidhi. anigu halkaa jiifa oo caynkaasiya. nebigu waa iska cafiyey. waa kuma madaxweynaha maanta dunida jooga isku day dil inta lagu sameeyo odhan doona waan iska cafiya, iska baxo. never in history kuma haysaan taariikhda bini aadamkee la hayo. aan si kale eegno nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam dagaaladii isaga iyo yuhuudda dhex maray waxaa ka mid ahaa dagaalkii khaybar. dagaal ku adkaaday weliba ahaa. dhowr maalmood saxaabadu ay dagaalamayeen, ay furan kari waayeen. maalintii dambe uu nebigu yidhi nin ilaahiyo rasuulkiisuba jecel yihiin, isna jecel baan u dhiibayaa raayada jihaadka. cali ibn abi aalib oo bakoora ku dhacday oo meel fadhiyo calimee waa bakooraysan la yidhi u yeedha. waa ku tufay, indhaha ilaahay fay uga siiyey. cali buu u dhiibay. waa la dagaalamay. akhiiran meeshii way qabsadeen. khaybar markii la qabsaday nimankii yuhuudeed waxay dhahdeen maxaa tala ah, xoog wax iskaga dhicin weyne maxaynu yeelnaa. mu'amara thaaniya waxa la yidhahan sumayno ka takhalluso. neef adhiya ayaa halkan loo shiilay. dabeetana waxaa la yidhi xagguu u jecel yahay, diraac buu ugu jecel yahay baa la yidhi. neefka sumeeyo halkaa sunta ku badiya baa la yidhi, meeshuu isagu jecel yahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa neef adhiyoo la moofeeyey loo keenay iyo saxaabadiisii. hadiyaadka ma diidi jirin nebigu. soo fadhiistuu yidhi saxaabadiio cunis baa lagu dayey. ilaahay baa u waxyooday in neefkani sumaysan yahay. diraacu kor u qaadaa u sheegay inuu sumaysan yahay. dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu dhigay buu wuxuu yidhi yuhuud wixii halkan jooga bal igu yeedha. waa loo yeedha.
wuxuu ku yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam innii saa'ilukum can shayin falantum saadiqay canhu yahuuday waxbaan idin weydiinayaa ee run ma ii sheegaysaa haabay yidhahdeen run baanu kuu sheegaynaa wuxuu nebigu ku yidhi man abuukum yaa aabbihiina yaa ku abtirsataan waxay yidhahdeen fulaan binu fulaan reer hebel baanu nahay kadabtum bal abuukum fulaan buu nebigu yihi been baa ii sheegaysaan aabbihiin hebel maahee reer hebel baa tihin hebel baa ku abtirsataan waa runtaa bay yidhaahdeen war waxbaan idin weydiinayaa marka loo ku celiyay run ma ii sheegaysaa haa bay yidhaahdeen waayo haddaanu been sheegno dee waabaad garanaysaa bay yidhahdeen saadkan ba u garatay wuxuu ku yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam man ahlu naar naarta ayaa gelaya waxay yidhahdeen in yar baanu anagu ku jiraynaa dabeetana idinkaa nooga dambaynaya yahuudi waxaan rumaysantahay afartankii cashe ee ay dibiga caabudeen inay iyagu intaa la cadaabayo kadibna dadka kale lagu gurayo iyagoo ay ka baxayaan waxay dhahen waxoogaa baanu anagu ku jiraynaa laakiin idinkaa nooga dambaynaya nebigu wuxuu ku yidhi ikhsa'uu fiiha wallaahi laa nukhlifukum fiiha abada ku hooge ilaahay baan ku dhaartay inaanan weligiin idinka dambaynin naartuu ku yidhi war waxbaan idin weydiinaya run ma ii sheegaysaan bay idhahdeen nacam ya abalqaasim baa la yidhi run baanu kuu sheegaynaa baa la yidhi nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hal jacaltum fi hadihi shaati summa neefkan adhiga ah sun ma ku darteen ma sumayseen hilibkan marka kan warku ku cadiye waxay sameeyaan oo kala garan maayaan qaaluu nacam bay idhahdeen waa sumayna qabqabtoo laaya nebigu ma odhan wuxuu yihi famaa xamalakum calaa hada maa xamalakum calaa dalik maxaa idinku xambaaray maxaa idinku kalifay inaad sida tan yeeshaan waa yahuud waa niman intelligenta meel kale isku dayan inay ka baxaan waxay idhaahdeen waxaanu rabnay dee haddaad beenaalo tahayna inaad na dhaafto haddii aad nebi tahayna dee waa lagu waxyoonaya waad iska badbaadi doontaa saasay nala ahayd bay idhahdeen waxaanu rabnay haddaad beenaalo tahayna inaad na dhaafto haddii dee aad nebi tahayna waa in kunta nabiyan lam yadurak nabigu calayh salaatu wasalaam waxba kumada waa iska cafiyey walidalik baa imaam albukhaariyi wuxuu baab uga dhigay baabu idaa gadara almushrikuuna bilmuslimiin hal yucfaa canhum gaaladu hadday muslimiinta khiyaamayso ma la cafinayaa buu baab uga dhigay dabeetana xadiidkan buu keenay isagoo tilmaamaya inuu nebi moxamed cafiyey calayhi salaatu wasalaam bale qaacidada caamka ah ee qadaayaadka nebiga ku gaarka u taallay waxay ahayd anas ibnu malik xadiidkii bukhaariye uu sheegayay man taqama rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam linafsihi qad nebi moxamed wax isaga gaarkiisa loo yeelay abidkii kama aargudanin wuxuu doonaba ha noqdo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nolosha wax bini aadam lagu sameeyo oo dhib oo aan la dhibini ma jirto wamaca dalik waa in la sumeeyaa la isku dayey in xoog lagu dilaa lagu dayey in dhagax lagu dilaa lagu dayey wax kasta waa lagu dayey haddana man taqama linafsihi qad qaacidadiisi waxay ahayd buu leeyay khaadimkii 10 sannadood u shaqaynaya anas ibnu malik nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam abidkii ma aargudanin dabcigiisaba kama mid ahayn waa kuma ra'iiska ama boqorka maanta dunida jooga inta la sumeeyo odhanaya khalluuh sii daayo odhanaya nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam laa khiyaano cudmaa buu ku qaaday walaa waxbuu ku qaaday oo iska cafiyey waxay leenahay bini aadamka colaadaha dhex mara maxaa ugu dhib badanee ka dhici kara waa dil soo maaha wax dil ka weyn miyuu bini aadam ku dhacda dil baa ugu badan dilka baa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fii baabi dimaa faman cufiya lahu min akhiihi shayun فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة إلهي وحليه فمن عفي له من أخيه شيء عندي لقد ضافه من أخيه يدو الدل دعيبة قرآن كوحو تلمامي ولا لمدي السلام يهد ولي إن أنا يقوين إن دتكو يقو استلي ورد بدح مرتي هدنا الأخوة العامة في الإسلام إن أنا ولي دمانين markaase waxaa la yidhi ninka walaalkii wax ka mida laga cafiyo dilka
في الشريعة waxaynu naqaanaa qofka dil geysta qisaas baa lagu leeyahay ama qawad baa lagu leeyahay macnaheedu waxay tahay in la soo qabto oo la keeno kaysku hadduu ku caddaado ciddii waliyu damka ahayd ee dhiigga lahayd waxaa u bannaan inay yidhahdaan ha la dilo naloo dilo qofkan waxaa u bannaan inay dilka ka cafiyaan oo ay mag qaataan bale waxaa u bannaan bay culimmada qaar leeyihin inay sii badaayaan walaa mag walaa waxba toona aanay qaadan inuu toos u cafiyo idan wixii ugu adkaaya bini aadam dhex mara waa dil dilna ilaahay wuxuu leeyahay qofkii walaalkii wax ka mida laga cafiyo maxaa jira faatibaacun bilmacruuf ay facala alcaafi kii wax cafiye waxaa korkiisa ah itibaacun bilmacruuf inuu magtiisa iyo wixii uu qaadanayo sama uu ku weydiisto kii wax laga cafiyeyna adaa-un ilayhi biixsaan baa isna korkiisa ah inuu si wanaagsan magtiisa ka bixiyey iyo wixii kale laga rabay dalika takhfiifun min rabbikum waraxma baa ilaahay yidhi kaasi waa takhfiifun min rabbikum waraxma waa fudaydin alla idin fudaydiyey subxaanahu wa tacaala waxa dilka ka hooseeya ee dhaawacyada ah ee isagana qisaastu ka jirto il loo rido ama gacan loo gooyo ama dheg ama san ilaahay wuxuu leeyahy wakatabna calayhim fiiha ana الnafsa bالnafsi wاlcayna bاlcayni wاlanfa bاlanfi wاluduna bاludun wالsina bالsini wاljuruuxa qisaas faman taصadaqa bihi fahuwa kafaaraة lah baa ilahay faman taصadaq nafta naf baa loo gooyaa isha il baa loo ridaa sanka san baa loo jaraa dhegta dheg baa loo gooyaa iliga ilig baa loo ridaa wixii juruuxeenna barri waa qisaas faman tasadaq baa ilahay yidhi qofka sadaqadaysta yacni bian cafaa can iljaani qofka cafiya qofkii jaaniga ahaa ee ama aqbala inuu diyo mag qaato juruuxaad ishii inaanu odhan ishii halayga ridee magteedu inuu qaato amaba cafiyey fahuwa kafaaratun lahu baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala idan ayuha alikhwa nolosha dhibta bini aadamka soo martaa noocay doontaba ha noqotee cafigu wuu galaa sida awgeed baa anas ibnu malik xadiidka abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu maajaba warinayaan sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamay wuxuu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam anas ibnu malik baa wuxuu yidhi maa ra'aytu nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam rufica ilayhi shayun fiihi qisaas ilaa amara fiihi bilcaf maan arag buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo loo keenay shay qisaasi ka sugan tahay ilaa iyo wuxuu yidhi warbar horta iscafiya nebigu wuu celiyey inay iscafin karaan buu ku dayay yacni wuxuu anas ibnu maalik rabaa inuu inoo sharxo inay qaacida caammatay cafigu ayuha alikhwa waa dadka kibaarta ahi waxay samayn karaan innaga waxaa laga yaaba dhaqankeenna ninnimada inaynu naqaano marka far lagugu taago inaad shanta ku taagto waa nin rag oo wax iska dhiciya baa la ydhahda ama cafisku nooc min adullinimo ama liidashanimo ama tamaryari ayuu dhaqanka soomaaliga ka yahay walidaalika ayuha alikhwa haddaad dib ugu noqoto taariikhda islaamiga maalan saxaabada waxaa ka mid ahaa nin la odhan jiray qays ibnu caasim ilminqariy reer bani tamiima qays ibnu caasim xadiidka xasan ligayrihi adab ilmufradka ku soo aroray sheekh alalbani waa ninku ku tilmaamay inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam hada sayidu ahli lwabar reer baadiyaha waa odaygooda qays ibnu caasim wuxuu ahaa nin waayeela oo saxaabiya oo xoolo badan oo halkuu dego aan lala degin bay yidhahdaan xoolihiisa tirabadnidooda daraaddeed dooxaduu dego dadka kale ma degaan ninkani xoolo badnidu qabo waa ninkii nebiga weydiinaya calayhi salaatu wasalaam intuu u yimaado xoola maxaa u fiican ee uu nebigu u tilmaamayey xoolaha inta la dhaqdo inaan la ysku badinin oo kale ninka kani carabtu ninkay u yaqaaniinba inuu dulqaad ku caanbaxay oo axnaf ibnu qays waa nin fii zaman aljaahiliya noolaa nebiga bicsadiisii joogay laakiin nebiga aan la kulmin saxaabadii la kulmay oo islaamay marka waa taabici mukhadrama nebigana ma arag haddana waa islaamay wuxuu ka mid yahay carabtu
dee dad baa ku caanbaxa wanaagga maalan xaatim iطaa'i deeq buu ku caanbaxay ninkanina carabta waa ninka dulqaadka ugu caanbaxay axnaf ibnu qays waxaa la idhaha muuqaalkiisa nin ila oo wagdale oo gaaban oo aan qurux badnayn buu ahaaba la ydhaha muuqaal ahaan laakiin wuxuu ahaa carabi ninkay tidhaahdo xilmi iyo dulqaad marka laga waramo waa yeelkeeda axnaf baa waxaa la yidhi dulqaadkaniyow yaa ku baray wuxuu yidhi qays ibnu caasim baan ka bartay qays ibnu caasim kanaan ka warramaynay saxaabigu ka bartay oo suuga bartay wuxuu leeyahay qays ibnu caasim oo goob fadhiya naadigiisii oo sheekaynayo hadlaya iska doonyaysanoo hadlaya ayaa waxaa la keenay inanuu dhalayoo meyda iyo kii dilay oo laysku wado xidhxidhan baa loo keenay dabeetana kii xidhxidhnaa buu sidaa u ego wuxuu yidhi waryaadheen laqad ducirtum alfataa buu yidhi warkan waa argagax geliseen hadde waa kii dilka sameeyey warkan waa argagax geliseen war bal xadhigga ka fura buu yidhi xadhiggaa laga fura dabeetana wuxuu ku yidhi ninkii buu la hadlayo waryaa waxaad samaysay waa wax fool xun tolkaa tiradiisii waad yaraysay xooggiisiina waad daciifisay cadowgaana waad xoojisay rabbigaana waad danbaad ka gashay raximka iyo qaraabadaana waad jartay iska sii daaya buu ku yidhi meydkii inankiisii baa isku waday waxaa kan inanuu dhalay oo kaleo meesha taagan bu wuxuu ku yihi dhegayso meydkanna soo dejiise maydha oo diyaariya oo marka xabaasha lagu ridayo salaada lagu tukanayo iisoo sheeg islaantii inankan dhashayna reeraha kama mid aha buu yidhi oo waa naxaysaaye geela halkaa jooga diyadii ka siiya waxay dhahdaan mowqicii shirka isagoo siduu u fadhiyay aan bedelin oo weli warramaya oo aan kicin oo qadiyadaniba argagax gelin ayuu wuxuu faray kanna in la sii daayo wax dilay kan la dilayna in la diyaariyo meydkiisa hooyadiina inankeedii baa la dilay in mag la siiyo meydkan marka la diyaariyana in loo yeedho dabeetana warkiisiibuu watay axnaf ibnu qays wuxuu leeyahy maantaa markaan arkay qays ibnu caasim siduu yeelayay maantaas baan dulqaadka bartay buu yidhi waxaan u jeednaa wixii badheedhka ahaa waa kaa ama hadduu khata isagu u dhacaba isnaan xadiidka bukhaari idiin tilmaamo ghaswat uxud markay dhacday wakhtiyadii muslimiintu ay iskala garan weyday isdilaysay markii calamkoodii raayadii ay eeganayeen mascab ibnu cumayr la dilay jabkii uu ku bilaabmay ayay isba kala garan waayeen dabeetana muslimiinta dhexdooda isdishay xudayfata bnulyamaan ayaa wuxuu arkay aabbihii xudayfe iyo aabbihii ghaswatu beder markii lagu jiray bay madiino yimaadeen marka dad macruuf oo aada loo garanaya maaha xudayfa wuxuu arkay aabbihii oo saxaabo kale seef ku boobayso dabeetana wuu istaagay isagoo leh abi 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 war waa aabbahay isagoo leh buu istaagay xudayfa cidi uma jeesan oo dagaalku uu socdaa dadku waaba dhiban yahe odaygii seeftaa lagu boobay kow baa lagaga siiyey xudayfa wuxuu isa soo dul taagay aabbihii oo naftu ka baxdo kow lagaga siiyey ragga dilayna ay saxaabo yihiin wuu eego wuxuu ku yidhi markaasi gafara allahu lakum ilaahay dembigiina ha dhaafo buu yidhi iska taag xadiidka bukhaari wuxuu tilmaamayaa maantaa kadib khayr kama suulin xudayfa suu dadkaasi isaga cafiyey yacni aabbihii uu arkayo hortiisa lagu dilayo uu leeya war waa aabbahaya ka daaya ayuu ka gaari kari waayey markii la dilayna kuwii dilay wuxuu u arkay inay khata ku dileen dabeetana iyagii buu u ducaynaya wuxuu leeya ilaahay dembigiinna ha dhaafo haddii qadaayaadka dilkii kuwaa yihiin qadaayaadka ka sokeeya maxaad u malaynaysaa markaa iyanaan laba qiso qur-aanku inoo tilmaamo qur-aanku wuxuu ka warramaya fii suurati yuusuf nebi yuusuf iyo walaaladii wixii dhex maray nebi yuusuf oo inan yara ayay walaaladii ximiyeen dabeetana way qaadeen inay dilaan iyo inay god ku ridaan bay kala doorteen god bay ku rideen ilmo yaroo carruuroo god lagu riday safar baa soo maray way qaateen waa addoonsadeen waa iibiyeen
addoonnimuu ku dhacay haddana awal god buu ku jiray godkii markuu baxayna addoonnimuu galay waa la addoonsaday gabadhii casiizu masr boqorku uu qabay baa hunguraysay waa diiday hala xidha baa la yidhi kani qoyskaabuu ceebaynayaa haddana jeel buu galay xabsigii buu 10 sano ku dhowaad ku jiray ilaahay baa ka soo daayey madax buu noqday nebi yuusuf nolol aad u kala durugsan buu maray markaa nolol isagoo yar aabbihii laga kaxeeyo iyo reerkoodii iyo god lagu rido oo la addoonsado oo jeel uu galo waxaasoo dhan markuu ka soo baxay ayuu haddana madax noqday isagoo wasiira oo madax ah ayaa walaaladiisii godka ku riday u yimaadeen wuu wanaajiyey waxba uma sheeganna walaalkiinii keena buu ma jiraa wiila walaalatiin haa walaalkiin haddaa keentaana raashinkan idiin badinaya waa keeneen akhiiran walaalkii makiida uu kula hadhuu samaystay oo ah suwaacilmelik boqorku wixii uu wax ku miisayay ayaa weelkooda lagu riday waa la baadhay weelkii walaalkii baa laga soo saaray walaalkii buu rabaa inuu la hadho marka kan haddana iyagoo nebi yuusuf hortaagan ayay haddana isaga caayayaan iyagoo aan garanaynin qaaluu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu bay yidhahdeen hadduu kan yari waxaday ku ka weyno ay walaaliyiinoo tuuga ba ahaan jiray bay yidhahdeen waa yuusufkan hortaagan ay godka ku rideen haddana boqorka ah ayaa waxay leeyihiin kan yar hadduu waxaday walaalkii buu la dhaqanyo waxaa jiray mid ka weyno ay walaal ahaayeenoo tuuga ilaahay wuxuu leeyahy faasarahaa yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahum qaala antum sharu makaana wallahu aclamu bima tasifuun yuusuf wuu ka xishooday xataa inuu yidhaahdo beenaalayaal iyo idinkaa tuuga ee wuxuu ku yidhi idinkaa ka shar badan buu hoos u yidhi baa ilaahay yidhi naftiisa waxba iyaga kuma odhan akhiiran waa yimaadeen wuxuu u sheegay inuu isna yuusuf yahay kana walaalkiiyo ilaahayna badbaadiyey aabbihiina ii keena buu yidhi qaaluu tallaahi laqad aaharaka allahu calayna wain kunaa la khaatiin bay dhahay ilaahay baanu ku dhaaranay ilaahay waa naga kaa doortay annaguna dembiilayaal baanu hayn bay dhahdeen wuxuu ku yidhi laa tasriiba calaykum alyowm canaaniba korkiinna ma ahaanin yakfiru allaahu lakum ilaahay dembigiinna ha dhaafo wa huwa arxamu raaximiina iska taga yacnii yuusufkii ay godka ku rideen haddana isagoo markuu bilaa tamarta ahaa god bay ku rideen godkii wixii ka dambeeyeyna wuxuu noqday inuu addoonnimo iyo xabsi uu galo waxaasoo dhan isagoo soo maray ayay haddana cay ula yimaadeen isagoo madaxa waxaasoo dhan buu ka cafiyey bale culammadu waxay idhaahdaan yuusuf reer kala lumay oo isaga iyo walaalkii dhan mareen oo inamadii kale dhan mareen oo kii u weynaa inamada kale waa kii yidhi markii ka yarna la waayay anugu aabbahay ku noqon maayo isna dhan u baxay odaygii indhabeelay yacquub ahaa nabiyullaahi yacquub reer dhan buu dib u soo ururiyey reerkaa wuxuu isugu keenay bay yidhahdeen kalimataan cifatu lisaani waalcafwi bay yidhahdaan carabkiisa oo aanu ku aargoosanina uu dhowray xataa waxay idhahdaan walaaladii isagoo khaatirkooda dhowraya markuu ilaahay baryayey wuxuu sheegtay maxay waqad axsana bii id akhrajanii min asijni wajaaa bikum min albadwi buu yidhi ilaahay waa ii samafalay markuu anigana jeelka iga soo saaray idinkana baadiyaa idinka keenay ilaahay buu u sheeganayaa jeelka iyo godka iyoma daran jeelka bini aadam baa ku nool oo waxba lagu siinaya dad baad la noosha god cidla adigoo carruuray lagu rido godkaa khatarsanaa labada muu odhanin bay yidhaahdeen ilaahay anna godka iga soo saaray idina baadiyaa idinka keenay isagoo khaatirka dhowrayabuu wuxuu yidhi dembigoodii iyaga ma sheegine dembigii boqortooyadu sheegay ilaahii anigana jeelka iga keenay idinkana baadiyaha iga keenay waxay dhahan waa cifatu lisaan xataa in yaroo tajriixa inay dareemaan ayuu diiday waanu cafiyey annimaadna cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu naqaanaa dhacdooyinka macruufka ah ee nabiga soo maray calayhi salaatu wasalaam dad buu la dagaalamayay gaalo ah munaafiqiin baa ku dhex jirtay muslimka raba inay burburiyaan nebiguna uu gacantiisa ka dhowray aanu rabin inuu laayo isku day dil bay ku dayeen wahamuu bimaa lam yanaaluda ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo wax kastay ku sameeyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam maca daalik
si aan bulshada muslimka ah khalkhal iyo muran u dhexgelin aan la odhan nebi maxamed cidda la socoto u laaya nimankii waxaa samaynaya munaafiqiinta nebigu ma laynin waxna isagoo garanaya bal saxaabada qaarkood xudayfa ibn al-yamaan u sheegay hebel inuu munaafiq iyo hebel munaafiq iyo hebel munaafiq iyo hebel munaafiq iyo uu sheegay magacyadooda biasmaa'ihim buqaar uu sheegay haddana nebi maxamed ma laynin isagoo ilaalinaya sumcadda ummadda muslimiinta oo leh markay yidhaahdeen aan dillo waa munaafiqaniye wuxuu nebigu ku yidhi waxaan kaa baqayaa inay dadka kale ku sheekaystaan nebi maxamed ciidankiisu laaya dadkiisu laaya waa xujoobay inuu yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam munaafiqiintaasi dagaal bay ku qaadeen dagaalkay ku qaadeen waxaa ka mid ah cirdigiisa iyo sharaftidiisa inay wax ka sheegaan inay yidhaahdaan nebi maxamed xaaskiisa ayaa nin kala raacday oo zinaysatay caaisha radia allahu canha ilaahayna saxaabadii wuu itixaamayo nebigaba wax waxyiya oo masalada ku saabsan bil baan laga soo dejinin bil baa magaaladu war a waday caaisha zinaysatay nebi maxamedna aamusna waxyina samada uu ka iman waayey caaisha ay xanuunsatay oo gurigii aabaheed iyo hooyadeed la geeyey oo warku tiro batay warkaa tirada batay dadkii runta mooday saxaabaan munaafiqiinta ka mid ahayn baa ku jiray 3 baa ka mid ahaa ninkii gabyaaga ahaa xasan ibnu thaabit la odhan jiray warkaa run buu mooday dadka faafiyo ku jira xamna bintu jaxash warkaa run bay mooday zaynab walaashay oo iyana waxbay sheegtay mistax ibnu athaat nin la yidhaahda isna run moodo wax sheegay ninkan mistax la yidhaahdo abibakar waa qaraabo waayo mistax hooyadii iyo abibakar baa habro wadaaga marka aftuu ugu toosay mistax waa nin muhaajira oo maka raggii ka soo hijrooday diintooda la soo hijrooday laakiin wuxuu ka mid yahay fuqarada muslimiinta abibakar baa beeliya isagiiyo hooyadii laakiin warkan buu run mooda u ka qayb galay bil kadib baa ilaahay qur-aan soo dejiyey caasho looga markhaati furayo inaynay zaaniyad ahayn ciddii tidhaahda caashi waa zaaniyad ilaahay buu beeniyey wuu ku gaaloobaya ilaahay baa qur-aan soo dejiyey ilaa caaisha xuma kuma dhicin kuwii warkaa sheegana inay munaafiqiin yihiin abibakar culamaa ilxadiid markay ka warramayaan waxay ku tilmaamaan inuu yahay nin xaruuriya nin cadho kulul buu ahaa markuu cadhoodo mawaaqifta axaadiistu ay ka soo arooraysaa inaad ka dareemaysaa inuu cadho kululaa laakiin nin qabsoomana wuu ahaa oo marka xaqa loo sheego markaaba cadho burburka uu ka baxo abibakar wuu cadhooday wuxuu ka cadhooday ninkaa gurigii nebiga wax ka sheegay ee inanta yar ay qaraabada yihiin wax ka sheegay ee abibakar dhowri waaye uu ninkaa biilinaya wax siinaya wuu ka cadhooday cadhadii buu abibakar waan dilayaa iyo waan argoosanayaa iyo waxbaan yeelaya baabkaa ma marin abibakar wuxuunbuu ku dhaartay war wax dambe ku siin maayo dhaaf waxbaa biil dambe inaanu siinin ayuu ka dhaartay ilaahay baa qur'aan soo dejiyey innaga wax laynagu barayo qur-aanku wuxuu leeyahy walaa ya'tali ulu lfadli minkum wasaca an yu'tuu uli lqurba ilahay wuxuu leeyahy yay ka dhaaranin kuwii dheeraadka la siiyey iyo balballaarinta nolosha ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ku siiyey yay ka dhaaranin inay wax siiyaan qaraabada iyo masaakiinta iyo muhaajiriinta ilaahay dartii u soo hijrooday kadib baa ilaahay amar bixinaya wuxuu amar ku siinaya abubakar iyo wixii ka dambeeya muslimaba walyacfu walyasfaxu baa ilaahay yidhi ha cafiyaan oo ha ka jeestaan arrintaasoo waxba yay ka soo qaadeen oo waayo ilahay wuxuu leeyay alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum idinku miyaydan jeclayn in ilaahay dembigiina dhaafo innagu maalin walba waa dembaabnaa isagoo ilaahay ku abuuray oo ku arsaaqay oo ku caafimaadiyey oo waxaasoo nimcaa ku siiyey wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha aanad tirin karin ayaad haddana nicmadii uu ku siiyey halkaad shukrinaqaysa iyo cibaadadiisa ugu adeegsan lahayd ayaad macsi ku gashaa haddana hadhow baad gacmaa taagtaa tidhaahdaa yaa rab ilaahu dembigayga cafi idan ilahay wuxuu leeyahy alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum idinku maydan jeclayn in ilaahay idiin dhaafo
adiga marka in yar lagaa galana cafiyi maayo waan aargoosanaya adigu markaad ilaahay dembiga ka gashana ilaahu cafi dalaba isqabta maaha baa ilaahay leeyahy abibakar ilaahay markaa wuxuu leeyahay cafi abibakar waa cafiyey biilkiisiina waa siiyey qisadatan markaa waa qoyskan barakadoodii iyo khayrkoodii bay ka mid tahay qoyskan reer abibakar ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu wuxuu inagu baray wax kasta oo la sheego xataa cirdigaaga iyo sharaftidaada iyo xaaskaaga iyo reerkaaga iyo kan haddii meel lagaga dhaco oo ceebaha intaa leeg lagu geysto ay been tahay oo cidda kuu geysatay ay ka mid noqoto midaad adigu biilinaysay oo wax siinaysay oo qaraabiya tol kula ahaa haddana ilaahay wuxuu ku faraya inaad iska cafido isagoo qaraabo iyo tolba kula ahayo aad biilinayso qof kaa fog oo shisheeye oo coltihin hadduu ku maagmaago waxaad odhanaysaa waa wax iska caadiya laakiin qofka kugu xiga hadduu ku maagmaago qofka kugu xiga hadduu ku maago ee aad adigu abaalka ku leedahay ma qaadanaysid de waayo abaalka waxaad sugaysay inuu kuu abaal guday inuu cay kuula yimaado iyo xumo kamaad sugaynin ilaahay kaas buu wuxuu leeyahay cafiyo idan ayuha alikhwa nusuustaasi waxay ina baraysaa noloshoo dhan in cafisku wax lagu maamulo uu ka mid yahay aannimaadna qoysku waa unuga bulshada ee ugu yar alusra bulshadu waa usar isu tegay qoysku waa unuga ugu yar qoysku waa dadka isugu dhexgalka badan lee wada jooga ninka iyo gabadhu waxaanay dadka kale kala aqoonin bay kala yaqaaneen ninkuna xaaskiisa dabeecadaheeda iyo nolosheeda iyo waxay gashay waxay guddoon dhan wuu yaqaanaa gabadhuna sidaasi leeg marka hore la isguursanayo qof waliba labeenta iyo ammaanta iyo inta mudan buu sheegtaa ila nina ceebtiisa ma sheega gabadhina ceebteeda ma sheegtee markase guriga la isugu yimaado ayaa qof walba xaqiiqadiisa la gaadhaa qof waliba wuxuu yahay uu muuqdaa caruur baa timaada gurigu mushkilaad badan buu yeeshaa waa meelaad maalin kasta dhibaatadiisu iyo mushkiladiisu ay iman karto ilaahay see ula dhaqma baa leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay dadkii guriga madaxda looga dhigay ragga ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum waawlaadikum caduwan lakum faxdaruuhum wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu faina allaha gafuuru raxiim ilahay wuxuu leeyahay subxaanah wa tacaala raggii alle iyo rasuulkiisa rumeeyayow dumarkii caruurta qaar cadow idiina baa ku jira ma eryaa la yidhi markaa day islaanta dhibi ka timaado ama caruurta dhibi ka timaado may dhaafaba ilahay wuxuu leeyahy faxdaruu digtoonaada mushkilaadkaad inay xaliili karto isku day wain tacfuu watasfaxuu watakfiruu baa ilahay leeyahy saddex eray oo saddexduba macnayaal isku dhodhow sheegaya oo saddexda midba ka kale xoojinaya ilaahay isticmaalay wain tacfuu haddaad tirtirtaan haddaad dhaaftaan watasfaxuu ka jeesataan watakfiruu intaaba haddaa yeeshaan baa ilaahay leeyahy faina allaha gafuuru raxiim baa lagu yidhi markaa ilaahay isaguna waa mid dembi dhaaf badan oo naxariis badan macnaheedu waxa weeyaan sidan adiguna haddaad yeesho dumarkii iyo caruurta u naxariisato dembigooda dhaafto muqaabiluha waxaad helaysaa in adigana waxaad qasaysa ilaahay kaa dhaafo in adiguna markaad yaa rabbi tidhaahdo ilaahay aqbalo idan guriga dadka badh noloshan dambe dadka badhba waxay moodaan tit for tit wax waliba in qaanuunka lagu xalili karo maya shareecada islaamiga inta qaanuun lagu xalila waxaa ka badan inta akhlaaqiyaadka lagu xalila walidalik baabkan markaan ka warramayo intaanan qaanuunka gaadhin baab ataxkiimi walqadaa intaanan gaadhin waxaa ka horeeya abwaabi akhlaaq iyo dhaqan in lagu xalilo mushkilaadka bini aadamka dhex yaala saa daraaddeed baa ilahay wuxuu inoo tilmaamaya qoyska inaynu dhaqanka ku dhaqanno reeruhu goormay isugu adag yihiin qoysku goormay isugu adag yihiin waa marka la isfurayo socanka maaha ilaahay wuxuu ka warramayaa subxaana wa tacaala marka xataa la isfurayo see loo dhaqmaa rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wain طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna waqad faradtum lahuna fariida fanisfu ma faradtum ila an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdaة الnikaax waan tacfuu aqrabu litaqwa baa ilahay
rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yihi haddaad dumarka furtaan inta aydan is arag ama aydan hoy wada seexanin haydan istaabanba iyadoo u samayseen meher u magacowdeen sadaaq yacni adduunka laysku mehersado iyadoo la magacaabay xaalku muxuu noqonayaa yacni nin iyo gabadh baa isguursaday weli may aqal gelin innaga dee caadadeenna in la magacaaboba weeyaane wakhtigaasna meherkii waa la sheegay gabadhu intaasay meher u leedayna wadaadkii meherinayaa sheegay waxaa timi inaa isfurtaan haddana idinkoo aan is arag waxay noqotay in la kala noqdo ilahi wuxuu leey hadday taasi dhacdo oo aad dib u kala tegaysaan shareecadii waxay sheegaysaa gabadhu meherkaa nuskeed bay leedahay haddii 4,000 lagu meheriyey 2,000 bay leedahay kaasi waa qaanuunka marka la eegayo amaa dhaqanka iyo akhlaaqda ilaahay wuxuu leeyahay ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax labada dhan mid uun wuu cafiyi karaa gabadhuna way odhan kartaa war waxbaha nusnusaynay nuskana waan kaa cafiya iska tag hadda waa la ysfurayaa laakiin waxaa la tilmaamayaa inay gabadhu waxani waa xaqeedana way ka tanaasuli kartaa hadday iyadu rabto haddaan la qasbin hadday tidhahdo war nuskana qaado iska tag xaq bay u leedahay ninka laftiisu hadduu yidhaahdo naa waxbaha nusnusaynin iska wada qaado meherkaaga isna xaq buu leeyahay waa wada siin karaa ilaahay wuxuu ina leeyahay markaas wa an tacfuu aqrabu litaqwa inaa wax cafidaan ayaa alla ka cabsiga u dhow baa laynoo tilmaamaya xataa xaaladda ugu adag ee ah in qoysku kala tago oo reerku kala baxo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay cafiska ha ilaamina noloshunbaa labadiinna u suurtogeli weydaye qof waliba bulshada cid kale ay uga suurtagal ha doono laakiin hayse xagxaganina baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay marka noloshoo dhan baa cafigu hadday mid siyaasiyati hadday siyaasad daakhiliyati hadday siyaasa khaarijiyatay hadday xuruubtay hadday isku day diltay hadday sumayn tahay hadday madaxweyne laysku dayo in la dil waxoo dhan cafisku waa ariiq ka mida ariiqa muranka lagu joojiyo xadiidka abu daawud iyo tirmidiba warinayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo aroorinayo sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo isagoo nebigu joogabaa nin u yimi markaasuu wuxuu uhi yaa rasuul allahi kam nacfu cani alkhaadim ilaahay rasuulkiisiiyow khaadimka shaqaalaha imise goor baanu cafinaa nebigu wuu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam ninkiiba hadalka ku celiyey haddana ilaahay rasuulkiisiiyow imise goor baanu khaadimka shaqaalaha imise goor baanu cafinaa markaasuu nebigu haddana aamusay mar saddexaad buu ku celiye uu leeyahy shaqaalaha imise goor baanu cafinaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu wuxuu ku yidhi cufuu canhu fii kulli yowmin 70 mara buu nebigu yihi maalin kasta 70 jeer cafi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii shaqaalaha ahaa ama shirkad ha kaaga shaqaynayo mudiiro ahaw ama guri ha ka shaqaynayo ama wuxuu doonay waa qof shaqaalaha imisaanu cafinaa markay ku celceliyeen nebigu wuxuu ku yidhi 70 jeer cafi أيها الإخوة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وقال با إلهي لي سيدا كل نقل nolosha haddaynu rabno markaa inaynu isbeddel ka samayno lama yidhaahdo maxaa loo gafay gafku waa min طabci اlbashar ayuu ka mid yahay khaطa'una wuu dhacaa gaf badheedhina wuu dhacaa laakiin waxaa muhimkahay waxa weeyaan inaynu barano qaabka wax loo xallilo inagu soomaali haddaynu nahay siiba dhaqanka soomaaliyeed aargoosigu waa wax ku weyn dulqaadkuna waa wax ku yar waxaa layna barayaa markaa dariiqa koowaad ee qaabka loola dhaqmaa inuu yahay cafiga cafiga waxa ka ratibma inaad dadka walaalowdaan waxa ka ratibma in colaadu baabado quluubtu isu furanto
waayo qofka aad yad ku lahayd ee intuu dhib kuu geystay haddana aad cafidaa berrita agtiisa lagugu xaman maayo in lagugu dhibo daaya waxaa ka ratib ma caafimaad xataa inaga shareeca inoo sheegtay gaaladuse can ariiqi tajriba waxay ku ogaadeen cafisku forgiveness inuu noloshaba fudaydiyo walidalik ayaa maalan ingiriiska jaamacaddan leeds la yidhaahdo ustaadu cilmi nafs kursiga psychologyga ninka u fadhiya kinhart baa la yidhaahdaa kinhart ayaa wuxuu iclaaminayaa ingiriiska dadka ingiriiska u iclaaminayaa dowra inuu bixin doono ku saabsiisan qaabka cadhada loo qarsado ee dadka loo cafiyo sababtuna waxay tahay buu leeyahay dadka caafimaadkiisa iyo nabaddiisa ku jira kinhart wuxuu leeyahay waxyaabaha xanuunada ugu badan ee hadda inugu dhaca oo uu leeyahay xanuunada wadnaha iyo dhiigkarka iyo kuwaasi dawooyinka ugu fiicana la siiyo lagaga hortago waxaa ka mida buu leeyahay cafiska saa daraaddeed buu wuxuu iclaaminayaa jaamacaddiisa qeybtiisa uu joogo psychologyga inuu bixin doonto koorsooyin tadriiba bulshada loo faafinayo oo 70 qof la qaadanayo ay yidhaahdaan maalmo yar bay ku buuxsantay kinhart iyo kooxaha kan cilmi nafsiga ka shaqeeya waxay leeyihiin khalaaya dimaaq baa qofka u nasta bay leeyihiin hadduu aargoosiga iyo cadhada iyo waxaan ay ka baxaan oo dadka iska cafiyo isaga caafimaad qaada bay leeyihiin qofka kani marka wuxuu ku doodayaa uu leeyahay psychologically isagay ugu jirtaa inuu si nolol fiican oo aan stress iyo cadho iyo dhib lahayn inuu noolaada caafimaadkiisa ka mid tahay buu leeyahay iyagu marka can ariiqi daraasatihim wa tajribatihim bay waxay ka barteen forgivenessku inuu nolosha waxtar u yahay ay isku dayayaan hadda inay bulshadooda waxay ku faafiyaan ay noqoto laakiin anigu uma baahni inaan leads iyo kursigeeda psychologyga adeegsada waxaan u baahnahay 44 aayadood in ka badan oo quraan ah ilaahay ku sheegay waan mid iyo 2 iyo 3 iyo 4 ahayn 40 aayadood in ka badan 4 iyo 40 aayadood ba ka waramaya marka la yiraahdo waxaan leenahay waa awalu ariiq bulsho cidda hoggaanka u haysaana ay ku hoggaamin karto bulshaduna ay ku wada noolaan karto bulshada isu uraysa ee ishayse iswada colaadinaysa waa bulsho cafina ma noqon karto bulsho dhisantoo jirta idan ayuha alikhwa fi lleyla aluula waxaan idin leeyahay awal ariiq muranka iyo dilka iyo dagaalka lagu xallilo waa ariiqa in la iscafiyo uu qofku kan qaato وإلا طريقة لبادان هبين دمك ورنا صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين